الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada wasiirada marwooyinka madaxda dhalinyarada dhammaan dadka halkan isugu yimi waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim bishii barakaysnayd baa lagu jiraa ilaahay dambi dhaaf haynaga siiyo xasanaadkeeda ilaahay hayna siiyo 15 dambaynu gelaynaa idinka iyo dhammaan reer Soomaaliland baa waxaan leeyahay Ramadaan Kariim inta marka laga yimaado gaaladu waxay yiraahdaan marka sidan oo kale surprise waxaan filayno ay isleeyihiin waba ka weyn yihiin lagu sameeyo I'm very humble I don't know if Somali wax lagu yiraahdo marka I'm really very humble maana aad waan idin ka mahadnaqayaa sida sharafta leh maamuuska leh kalgacatooyada leh aad ii soo dhaweyseen ismana lihi waad kasbatay laakiin ninku markuu dalkiisii iyo dadkiisii yimaado saaxiibo badan uu ku leeyahay dee kulay waxyaabo dheeraada waa loo sameyn karaa marka waxaan u arkaa in xoogay dheeraada la ii sameeyay inta marka laga yimaado sida Maxamed Daahir sheegay halkan anigu waxaan u imi dangaara runtii hooyaday oo yara xanuunsatay baan runtii hadda igu kaliftay inaan imaado de marka hadii la gartay in la soo dhaweeyo oo la igu sharfo sida la ii maamuuso dabcan aniguna waan qaatay waan idinka aqbalay waxaan rajaynayaa waxyaabaha la igu sheegay iyo waxa la iga filayaba in la iga helaan rajayn doona bidlahi Kariim oo aan halka ilaahay igu qadin inta markaan ka tago de waa chance intaas oo television intaas doodaan haysta in kasto aan ku tala gelin hadana waa ka faa'iideysanayaa kulay labadeeda kelmo waan oranayaa marka ugu horeysa waxaan jeclahay halkan waxa jooga niman aanu saaxiibnahay qaar aanu tolnahay qaar aanu hadda saaxiibnahay laakiin long time enemy ahayn oo hadda aanu moogtahay heshiinay runtii sababta ugu weyn ee isu kaaya keentay haddii aan la yiraahdo isku xidhka inta la eg samaysay waxa weeyaan midnimada iyo hagaajinta Soomaaliland waxaanu isleenahay wax fara badan waad qabateen wax fara badan weydiin harsan yihiin waana ku kalsoonahay teamka halkan qaar badan ka joogan rag badan maqan yihiin inay keeni karaan midnimo buuxdo Soomaaliland leedahay siduu sirku sheegay aanu jawaab weyn baan ahaa xagayga mujaahid baan ka ahay marka la eego ama SCD ama de waa soo jabhaday haddeena run baan idin sheegayaa jabhadnimadu baa ka yara soo gashay muddo hadda laga joogo aduu 2 sano ku dhow baan qorshahan bilownay aanu bilownay inaan dhahno walba isku daalay iyaanade waxa weeyaan inagu daalay inana ku daalay dadaynu kala maarmayno ma aha dadku aynu danaheena ka shaqeyno yeedaraha dadkeena annaga bilownay Soomaaliland ma bilaabin reer Sheekh Isxaaqna ma bilaabin wada hadallada hadda socda iyo shirka Awrboogayseed annaga fanqaraynay annaga wasiirkii arrimaha hore biyaha baashe socdaaladiisii uu ku mareeyay dhulka ku taageernay dadka la hadalay nidi warnimanka kala maarmayno dan badan way naga dhaxaysaa de intaynu istigraari karnana istigraarnay waana ku fogaadeenba iyagu waana waxaan isleenahay idin kale idin qaatay istigraarkii way ku fogaadeen inta inana dhaafin balaynu wada hadalno oo waxa weeyaan dhowr su'aalood baan rabaa inaan idin weydiiyo laga yaabo jawaabahooduna inay su'aalaha ku jiraan oo waxa weeyaan Soomaaliland horta Soomaaliland waayo Soomaaliland waayo Soomaaliland yaale Soomaaliland yaa manaafacadsado hadda iskaga shaqaysta horta Soomaaliland sida ku qoran heshiiskii Burco 18 May 1991 waa Soomaaliland waa maxmiyadii Ingiriisku gumaysan jiray waa dadka la yaqaano ee British Somaliland koloniga ahaa taariikhdooduna waliba 18 May dhawaana ka horeysay xilligii gumaysigana ka horeysay
intaynu inagu ku garayno gabayada iyo sheekooyinka ayaa 200 sano iyo 300 sano waxa laga yaabaa dadka badankiisu markaynu sheekaysanayno waxyaabaha aadka looga dharagsan yahay inta badan laga wada hadlo waxa kamid ah waxaynu isu nahay dhiiga dhaqanka afka abtiga inanta xididka oo runtii laga yaabo hadda dadkuba inay boring ku noqdeen sidii loogu soo celinayay waxaan si aanu rumaysanahay inta ka badan inaynu isu nahay oo 500 sano iyo 600 sano xabaaleey odayaasheena isku meel ku yaalo oo dadku waxa laga yaabaa qaar isku khaldameen oo kuwana xaga joogan kuwana xaggan joogan marka arintaas iyadoo arin maaha la isku suluugsan yahay waa arin la wada og yahay laakiin su'aasha meesha taala waxa weeye haddii aynaan midnimadii soo celin haddii aynaan Somaliland sida ay ahayd iyo waxa ay tahay iyo moogtay dadkii lahaa la siinin ee Somaliland ay beel isku koobto ana waxaan rumaysanahay cadowga ugu weyn ee Somaliland leedahay waa beesha dhexe keligooda dabaaldega keligooda mudaharaada Somaliland reer Somaliland bay u baahan tahay uma baahna qolo yar tribe baynu gidigeenahay hal tribe baynu nahay manihi 5 tribe iyo 6 tribe marka waxa weeyaan runtii haddii de waqtigu ii saamixi lahaa ama munaasabadu tan ka duwanaan lahayd saacad iyo 2 saacadood baan hadalay wali waan hubaa inay dhageysan lahaydeen oo macnaha waxa weeyaan sida loo khalday Soomaalinimadii sida meel looga dhacay sida loogu shaqaystay waxa weeyaan clan dictatorship baa ka jira meesha tribe dictatorship baa Somaliland ka jira le dictatorship ku afar badan yahay hal tribe baa tribe-yadii kale oo dhan ku dictatoray laakiin waxaan rumaysanahay reer Somaliland waa dad wax fara badan isu ah wax fara badan bay isla soo mareen taariikh fara badan oo ka dhaxaysay leeyihiin annaguna waxbaanu ku leenahay oo hadda markaanu sheekaysanayno inkastaanu ogaan doono runteeda waxaan dhahnaa waa nimankan inaga u saamaxnay inay baawarka abuse gareeyaan waxaan inay sameeyaan marbar baa hadda shakiyaa is raahdaa waran mad khaldantihiin nimanku waxaan ay ku tageen buu ku fogaaday laakiin waxaan rumaysnahay oo rajo weyn ka qabaa oo aan raggeedii hayaa oo aan dadkeedii hayaa oo aan ogahay oo halkan ila wada joogaan oo ay diyaar ka u yihiin midaynta Somaliland si la isugu keenin lahaa Somaliland waa inay noqotaa wax la wada ilaashado oo cid waliba ilaashato oo ay qof waliba sense of belonging inuu isagu leeyahay u dareemaa garan yar baad u geliseen hadeero halka feeraha oo marba dilaacaya marka inaynu dhar leeg u gelino weeyaan kulmiyana de waanahay oo run baan idin sheegayaa waxa weeyaan in kastoo aan jecelahay wada hadalka iyo dadaalka iyo raadinta Somaliland midaynteeda in laga midaysnaado oo aanay wax xisbi iyo loo kala qaadqaado aanay ahayn ee reer Somaliland aan rabo inay ka wada shaqeeyaan ama mucaarad ha noqoto ama muxaafid ha noqoto haddana de kulmiya hawshan wuu nala bilaabay runtii wax fara badan bay dawladdu ama wasiir ha noqoto ama madaxweynuhu ha noqoto inkastoo anigu intaan rabay aanay gaarsiisnayn oo aan isleeyahay waxyaabo fara badan oo shirarka Awrboogayseed iyo heerarkeedii aan ahayd in la gaadho lama gaadhin haddana wax fara badan bay qabteen way nala jaan qaadeen waxbaanu isku ognahay ninka la yiraahdo Muuse Biixi Awrboogaysna waa jiifay caroolina wuu seexday oo carooli qoliyaan ku yidhi xagga miyaad carooli weligeed maqasheen beesha dhaxaa mayo de Muuse caawa carooli buu hurtay wadani bay ahaayeen niman aan asxaabahay baan waxaan ku yidhi iska samra ninka maladu carooli seexday oo odayaashii reer caroolina wuu u sheekeeyo daraawiishtii uga sheekeeyo waxay yiraahdeen warkan waa darwiish waxaana rumaysanahay Muuse inuu ku dhaceedana leeyahay kartideedana leeyahay inuu dhammaystiro marka sir ma ahaano inaan jecelahay Muuse inuu soo noqdo oo sidaanu Muuse meesha u saari lahayn aanu maartay 100% ku dadaalin inta waxaan rabaa inaan ku daro oo aan in yar ilaahdo xildhibaanka mayalka adag Saleebaan iyo annagu qolaa 26 sano xarig jiid ciyaarin meeshuna marnay waad aragtaan hadeer oo de qabiilkeegii dhamaa xarig jiidkii
ninkii waa halkaana marinaya waana ku ammaanaya runtii waxa weeyaan ninku inuu dee waxa weey waxaan ku oran jiray isaga iyo rag kaleba warde meeshii waxba kama haysaane baarlamaanka 6 baynu ku leenahay waxba maaha markaas waxay oran jireen dee noo imaado waxba iska celin karnee ma fahanti idinimi xildhibaan waxaanu jecel lahay gudoomiyaha baarlamaanka Saleebaan in laga dhigaa Soomaaliland waxay u tahay bil xijaab bay u tahay oo runtii waxa weeye ama magaca ha noqoto wato ama meeshu ka yimi ha noqoto ama shakhsiyan effortka uu geliyay ha noqoto runtii bil xijaab bay u tahay marka inagu kulli cod bixin mayno laakiin saaxiibadii waxaan ka codsanayaa war ninkani annaga qoladana oo waliba qolo weyna buu xarigjiid nala ciyaaro halkaan la marinaye midnimada Soomaaliland wax weyn buu ka tarayaa horena uu ka taray meesha hala saaro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته